kusoo dhawaada warka galabnimo caalamsida midiga fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saaro gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo khamiis ah qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan la joog wararkii ugu dambeeyay qaraxii maanta ka dhacay degmada hodan iyo warar kala duwan ayaa kasoo baxaya sidoo kale taliya hore oo ka badbaada hase ahaatee qaabkii uu dhacay qaraxaasi ayaan ku hormarinaynaa inta la xaqiijiyay ugu yaraan ilaa 4 qof oo shacab ahi ayaa ku dhimatay 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib qarax miino oo maanta ka dhacay qaybo ka mid ah degmada hodan ee gobolka banaadir dadka dhintay ayaa waxaa ku jira hooyo iyo canug yar ay dhashay kuwaasi oo saarnaa mooto bajaaj ay la kacday miinadaasi xilli ay marayeen agagaarka madaxtooyadii hore ee cabdiqaasim salaad xasan ee magaalada muqdisho saddexda qof ee dhaawaca ahi ayaa la sheegayaa inay marayeen wadada uu qaraxa ka dhacay kuwaasi oo lala cararay mid ka mid ahi goobaha caafimaadka ahi warar qaar ay helayso warbaahinta qaar ayaa sheegaysa in bartilmaameedka qaraxa uu ahaa gaari ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda walow uusan soo gaarin wax khasaare ahi sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan laamaha amniga oo baaritaano kooban ka sameeyay halkii uu falka ka dhacay balse ma jirto faahfaahinna ay bixiyeen qaraxaasi iyo sida kale cid ku soo qabatay falkaasi ama lagu soo qabtay inta badan dagaalyahanada kooxda al-shabaab ayaa weerarada noocan oo kala ahi ka fulisa gudaha magaalada caasimadda ah muqdisho walow aysan weli ka hadlin qaraxaasi uu khasaaraha soo gaaray dad rayid ahi oo aan waxba galabsan isla markaasina inta badan lagu og yahay ururka al-shabaab markii qaraxyo noocan oo kala ay sameeyaan markii shacab ay ku xasuuqaan ma ka hadlaan oo shib ayay dhahaan laakiin markii askar ay wax ku noqoto horay ayay ka sheegtaan hase ahaatee ururka al-shabaab ayaa dhiigga islaamka ama muslimka ee hooyooyinka carruurta iyo odayaasha magaalada muqdisho banaystay isla markaasina markii shacabka ku xasuuqaan inta badan awaada in arrintaasi ay ku fashilmeen shibna ka yiraahdo wixii warar ku soo kordhay dib kala socod hase ahaatee qaybta kale aan dhinaca kale eegno taliye ka badbaaday qaraxaasi taliye ku-xigeenkii hore ciidanka xoogga dalka generaal maxamed cali bariis ayaa ka badbaaday qaraxii maanta ka dhacay magaalada muqdisho qaraxa oo ka dhacay agagaarka madaxtooyadii hore ee cabdiqaasim salaad xasan isla markaasina ahaa nooca dhulka lagu aaso ee ahayd ayaa waxaa ku dhintay dad shacab ahi oo halkaasi marayay xilliga uu qaraxa dhacay ayaa waxaa goobta marayay gaariga uu la socday taliye ku-xigeenkii hore ee ahaa kuwa ciidanka saaran yihiin oo aan xabadda karin isla markaasina bartilmaameedka uu ahaa in sargaalkaasi gaarigiis lagu qarxiyo sida ay calansida media u xaqiijiyeen goobjoogayaal gaariga uu la socday taliye ku-xigeenka ayaa ka gudbay goobta miinada ku aasneed waxaana kadib haleelay bajaaj ay saarnaayeen dad shacab ahi sida aan hore usoo sheegnay hooyo iyo cunugeeda inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku dhintay hooyo iyo ilmo ay dhashay oo mootada saarnaa halka 3 kalena ay ku dhaawacmeen ma jirto cid weli sheegatay qaraxii maanta ka dhacay muqdisho balse waxaa xusid mudan in qaraxyada noocan oo kale looga bartay kooxda argagixisada al-shabaab oo dagaal kula jirta dowladda Soomaaliya iyo ciidamada midowga Afrika ee ku sugan magaalada muqdisho saraakiil guud maxamed cali bariis oo la hadlay warbaahinta ayaa xilka uu iska casilay 18 Febraayo isla markaasina ilaa iminka uu yahay ciidanka aan ka mid ahayn dhinaca kale safiirka qatar u jooga Soomaaliya oo gaaray Kismaayo iyo ujeedka socdaalkiisa wararkii ugu dambeeyay ka soo baxaya waxaa goordhow magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamul goboleedka Jubbaland gaaray wafdi uu hogaaminayo safiirka dowladda qatar u jooga Soomaaliya Xasan Xamsa Asad safiirka iyo xubnaha la socday waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo kusoo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka sida wararka ku helayna safiirka qatar ayaa magaalada Kismaayo u tagay sidii uu xarga ugu jari lahaa mashaariic waxbarasho oo dowladda qatar ka hirgelisay caasimadda ku meel gaarka ah ee maamulka Kismaayo safiirka qatar ee Soomaaliya ayaa inta uu joogo magaalada Kismaayo la filayaa inuu la kulmo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe iyo mas'uuliyiin kale una kala hadlo arrimo badan ay ka mid yihiin taageerada qatar ee Soomaaliya dowladda qatar ayaa ka mid ah dowladaha sida weyn oo xilligaani u taageera dowladda Soomaaliya lamana oga in safiirka uu madaxda Jubbaland kala hadli doono khilaafka xilliga ka dhex oogan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland hase ahaatee waxaa macquul ah in halkaasi uu maamulka Jubbaland ballanqaadi aad u culus u sameeyo isla markaasina uu yiraahdo mashaariic aad u fara badan ayaa idin dhisaynaa ee madaxweyne farmaajo la heshiiyo si kastaba ha ahaatee wixii warar ku soo kordhay dib kala soco calansida media fadlan nala joog ardayda jaamacadaha muqdisho oo wada abaabul banaanbaxyo xoogan isla markaasina magaalada muqdisho la doonaya inay kaga banaanbaxaan dowladda ay hogaamiyaan madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare xasan cali khayre warar uu kalsoon yahay oo ay heshay calansida media ayaa sheegaya in ardayda jaamacadaha gobolka banaadir ay wadaan abaabul banaanbax xoogan oo looga soo horjeedo dowladda uu madaxweynaha ka yahay madaxweyne farmaajo xarunteedina ay tahay filla Soomaaliya
ardaydan ayaa ka cabanaya xirnaanshaha jidadka magaalada muqdisho, habdhaqanka ciidamada booliiska federaalk Soomaaliya oo maalin kasta qof shacab ah dila islamarkaasina bilaa micno darro u dila, iyo in gobolka Banaadir loo helo maamul ay ayaga dhistaan islamarkaasina dhalinyarada magaalada muqdisho ku nool ay xaqooda si u helaan maadaama ay la mid noqonayaan maamul goboleedyada kale ee dalka islamarkaasina xaqooda iyo xuquuqdooda ay u raadsanayaan maamulkii magaalada muqdisho loo dhiso. Xoogga abaabulkan ardayda ayaa waxa uu ka socdaa aalada loo yaqaano WhatsApp-ka, kaas ayagoo samaystay midowga ardayda jaamacadaha gobolka Banaadir islamarkaasina halkaasi abaabulka xooggan oo ku socdo. Waa markii ugu horeysay ay midoobaan dhalinyarada dhiganaya jaamacadaha magaalada muqdisho, lamana oga natiijada ay ka keeni doonaan abaabulkooda. tolowma waxay fursad u noqon doonaan inay badbaadiyaan dalka maadaama laga cabsi qabo dalka inuu galo qalalaasa siyaasadeed islamarkaasina haddii uu madaxweyne Farmaajo oo xilligiisa si xooga ugu darsado ama waqti 2 sano ku darsado, halkaasi ay macquul tahay in qalalaasa siyaasadeed ama dagaal halkaas uu ka dhaco maadaama inta badan maalin kasta ay soo hajabaan mucaaradka dawladda ka soo horjeedo. wadamo badan waxaa isbedel ka sameeyay ardayda dhigta jaamacadaha, waxaana ugu dambeeyay dalka Suudaan sida wada ogtihiin oo midowga ardayda jaamacadaha Suudaan ay banaanbax xilka kaga tuureen keligii taliyihii Cumar al-Bashir iyagoona cabasho ka ahaa qiimo kororta ama qiimo lagu kordhiyay rootiga iyo fuulka laga cuno dalkaasi. si kastaba ha ahaatee kacdoonkii dhalinyarada jaamacadahaasi ayaa ugu dambeyntii xabsiga loo taxaabay ninkii in muddo dheer haystay halkaasi, waxaana magaalada muqdisho laga yaabaa haddii arrintaani ay dowladda federaalk Soomaaliya caburinta shacabka ay kusii hayaan sidii Cumar al-Bashir oo ku dhacdo kala inay magaalada ka dhacdo. si kastaba ha ahaatee arrintaana meeshay ku dambayso calansida media ayaa idin soo tabin doonto, fadlan nala joog. dhinaca kale ayaa ku guuleystay codayntii loo qaaday Djibouti iyo Kenya ee golaha ammaanka qaramada midoobay. dowladda Kenya iyo dalka Djibouti ayaa ku kala bixi waayay cod bixinta ka dhacday xarunta qaramada midoobay oo loolanka labadaasi dal ay ugu jireen helitaanka kursi aan joogto ahayn oo ka mid ahay 15 kursi ee golaha ammaanka. doorashadii shalay ka dhacday ayaa waxay Kenya heshay 113 cod halka Djibouti ay ka heshay 78 cod, taasi oo macnaheedu yahay in berri lagu laaban doono codaynta kale maadaama Kenya aysan helin 2/3 meel codadka ama 129 cod ayaa lagu guuleysanayaa. maanta ayaa laga yaabaa in codaynta mar kale ay dhacdo. Kenya iyo Djibouti ayaa labaduba raadinaya inay bedelaan dalka Koonfur Afrika, waxaana dalkii ku guuleysta oo kursiga ku fadhin doona muddo 2 sano ahi. codaynta labaad ayaa dhici doonta maanta, waxaana haddii Kenya ay ku guuleysato ay noqon doontaa markii saddexaad ee kursiga ay hesho. Kenya ayaa sidoo kale xubin ka ahayd golaha ammaanka 1973, 74 iyo 1997 iyo 98. Djibouti weligeed kuma guuleysan kursiga. dowladda Soomaaliya ayaa horey u sheegtay inay taageerayso musharaxnimada Djibouti, waxaana jirta cabsi ah in haddii Kenya ay hesho kursigani ay u adeegsan karto inay golaha ammaanka ka bilowdo cadaadis ka dhan ah Soomaaliya oo ku saabsan inay ka laabato kiiska badda ee maxkamadda ICJ taalo. codeymihii kale ee shalay dhacay ayaa India waxay ku guuleysatay kursiga xubnaha aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee dalalka Aasiya, halka Turkiga ay ku guuleysatay madaxweynenimada golaha guud ee qaramada midoobay. 5 dal ayaa xubin joogto ah ka ah golaha ammaanka, waxaana Mareykanka, UK, Ruushka, Shiinaha iyo Faransiiska 10 kursi ee kale ayaa waxaa labadii sanaba qabta dal ka mid ahay 193 dal ee xubnaha ka ah qaramada midoobay.